بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين إله بأمان سبحانه وتعالى عليه عاوة وهبين ثلاثة يسوق ليسا كنا بيغان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحي لباتنك بيش سفر كنا فربقولي لبي أفرد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبيغان إن مسجد كأبو بكر الصديق نيروبي ومرتين لوغية هاي شيخ مشايخ دا أمد الصومالية كمدة دور في عن أو في الفرعون كله ومد وحبريتان كذا دين هذا وبره sidoo kale dacwada iyo wacyigelinta ummadana qayb ka qaatay ilaahayna ka baryayna subhanahu wa ta'ala inuu umrigiisa barakeeyo iyo waqtigiisa iyo awlaadiisa iyo xaaladiisa dhanba ummadana khayr badan uu kordhiyo aad baan u faraxsanahay sheekh imaadkiisa waa sheekh Ahmed Maxamed oo ku magac dheer sheekh Ahmed Yare markaska weyn ee Abu Hurayra مقدشة علماء جوجتا أيو كشيخ كمدي هاي دور كفي عنا كله باقشة أيو نقص وجاري إنه محاضرة وقراء ومدى أيام كعد سني اسنو أجيب مشكورا شيخ إن شاء الله تبارك وتعالى ونقري دونا محاضرة عنوان كذوي هاي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أهمية دي بوسك أي جوجتا باهي أدوين إن لقب كل يبين كما قرصونا ما أنت in sunnada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam dadka loo bidhaamiyo dadka la baro dadka jidadkeeda iyo meelaha loo bara dadka la tuso waxyaabaha sunnada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam ka hor imaan kara ama ka hor imaana oo isku daya inay sunnada nabigeena alayhi salaam meesha ka saaraan si looga digtoonaado sheekha uu dadku bidhaamiyo iyo waxyaabo badan oo khayraad insha Allah ta'ala sheekha inuu نوفا إذا رجينا شيخ محمد الشيخ سودو مركز أبو بكر الصديق في نيروبي ولا لها دحدو سودو وحنفلا يا محاضرة الرئيسي وكورونا انتو دعي كدب درسي وقوني لكن محاضرة الرئيسي وانتو كورونا هذا لقى صور نقضي إلهي سبحانه وتعالى انت نمنه نقضوا القاضي يعني نقون إيساء إن شاء الله وحنفلا يا مركز وحالقى بوكسوني يا كورونا وحالقى بوكسوني يا بدعة waxaa loo baxayaa sunna waxaa loo baxayaa caafimaad insha Allah tabaaraka ta'ala sheekh waxaan soo dhawow marhaban bik jazakallahu khairan tafadhal mashkuran bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du awalan ba'da shukrillahi tabaaraka wa ta'ala wa hanu shukrina sheekh aadam imaamka masjidka iyo mudarrisiinta masjidka ka mid ah iyo culimada masjidka iyo dhammaan jamaacada masjidka fadhigan ama kulankan aan isugu faa'iideynayno suuro geliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala allaanu shukrinaynaa uma juhuuddaas intii bixisay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo intaas ka bacdi kelmadda dabcan mowduuceedu waxa uu ku saabsan yahay as-sunnatu an-nabawiyatu makaanatuha wa ahamiyatuha sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam booska ay joogto iyo ahamiyadda ay leedahay awalan allah subxaanahu wa tacaala rasuulkiisu wuxuu dhigay maxal ama boos aad iyo aad u qiimi badan oo iimaanka la rumaynayo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka mid yahay iimaanka arkaanul iimaan ayuu ka mid yahay shahaadateynka tan labaad waxa ay tahay qiritaan la qiraayo ogaal qofku uu og yahay caddayn oo caddaynayo risaalada nebigeenna sala allahu calayhi wasalam weliba caamnimadeeda sida allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا
oo risaalada nebigeenna risaalo caam ah waay oo midka cad iyo midka madow iyo rag iyo dumar ahlu kitaab iyo cid aan kitaab la siinin dhammaantood risaalo wada gaaraysa waay waxaana nebigeenna sala allahu calayhi wasalam uu yidhi waaladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli nnaar ilaaha nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaaye ima maqlo mid yahuudi ah iyo mid nasraani ah kadib uunan i rumaynin ilaa wuxuu noqonayaa ahlu naar allah subxaanahu wa tacaalaa waa ugu gallad sheegtay mu'miniinta gaar ahaan inuu rasuul uga dhigay nebiga sala allahu calayhi wasalam jahliga inuu uga saaray isaga sababkii uu jahliga uga saaray wax uu kuwa markaa yacnii wax ku ogaado uu ka yeelay waxyigiisii iyo risaaladii allana subxaanahu wa tacaala ee ugu dambeysayna isaga ayuu ku sharfay ummaddana waa lagu sharfay ee allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi laqad mana allahu cala almu'miniina id bacada fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxyaabaha marka nicmada iyo galladda ee mu'miniinta alla uu ku galladay wuxuu ka yeelay inuu dhexdooda rasuul ka soo bixiyey muhimadda rasuulkaana ay tahay dadka inuu tarbiyeeyo kitaabka inuu baro sunnadiisa oo xikmadda ah inuu baro markii horena risaalo la-aanta dhibaatadeeda iyadoo alla uu noo bidhaaminayo waxa uu yidhi wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin risaaladaa ka hor waxay ku sugnaayeen dadku baadi cad waayo ninka kitaabiga ahna kitaab la beddelay oo iyaga dookooda iyo siday wax u arkaan maalinba say wax u arkaan mid laga dhigay oo lagu qoray oo ilaahay lagu masabitay ayaa kitaab u ahaa walidaalika yahuudda waa tii rajmiga aayaddii rajmiga kitaabkooda iyadoo weli ugu taalla haddana xukunkiisii ay ka tageen ka tegista ay ka tageenna ilaahay ay kitaabkiisa ay u tiiriyeen nebigana sala allahu calayhi wasalam bannaanka uu keenay allana markaa uu arrintaa uga mahad celiyey oo ilaahay uu ugaga mahad celiyey inuu ka yeelay maadaama uu ka yeelay kan ugu horeeye oo markii kitaabkii baaba-ay oo kitaabkoodii marka yacnii ay beddeleen ay baabi'iyeen midka xaqiiqdiisa iyo xaqiisa bannaanka keeno ou ka yeelay saabuu ilaahay ugaga mahad celiyey ninka mushriga ahee wathaniga ah ee noolaa risaalada nebiga ka horna wuxuu ku noolaa xaalad xun oo maalin walbaa wixii isagu hawadiisa uu ka helo ayuu caabudi jiray ilaa ay markaa intay timir dhoodhoobaan ay caabudaan markay gaajoodaanna ay cunaan risaalo la-aantu marka waqti wax ku xiran keliya ma aha mar hadday qofka risaaladu ka maqan tahay ama 2020ka ha noolaado ama quruun ka hor ha noolaado isku xaalad unbuu noqonaa wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi am taxsabu anna akarahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiila bani aadamku risaalo la-aan ma noolaa karo nolosha caadiga ah waa suurtoobaysaa laakiin xayaato oo waxay noqonaysaa sidii xoolihii iyo ka sii daran ayuu u noolaanayaa ilaahay rususha wuxuu u soo diray in laga dambeeyo oo la adeeco oo allah wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah rasuul ma annaan soo dirin ilaa waxaan u soo dirnay in amarka alle looga dambeeyo rasuulkaas waayo isagaa naga og maslaxadeenna isagaa nafteenna naga jecel annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum nebigu markaa isagaa mu'miniinta naftooda uga dhow isagaa uga turid badan oo ilaahay wuxuu ku tilmaamay nebigiisa ra'uufu raxiim mid turid badan naxariis badan isaga xadiidkii bukhaari ku sugnaa min xadiidi jaabir wuxuu ahaa mahalii wamahalukum kamahali rajulin awqada naara fajacala aljanaadibu waalfaraashu yaqacna fiih aniga idinka tusaalaha aan isku nahay waxa uu yahay buu yidhi
nin dab shiday oo kale bahallada dabka soo raaco ee ku daatana ay bilaabeen inay ku dhacdhacaan wa huwa yadubuhunna canhaa isaguna uu ka celinaayo wa ana aakhidun bixujazikum wa antum tafallatuuna min yaday anigu waxaan idinku dheganahay buu yidhi guntigaan idinkaga dheganahay idinkuna waa fakfakanaysaan oo waa iga baxbaxsanaysaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam hidaayada iyo hanuunka wuxuu ku xiran yahay isaga raaciddiisa haddii isaga jidkiisa la weydaarto oo la khilaafo hanuun ma jiro hanuunku waxaa lagu damaanad qaaday sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam inta iyada la raacayo ayaa hanuunku uu jiraa cagsiga baadiduna waxay kuu jirtaa inta aada nebiga sala allahu calayhi wasalam ka fogaato dariiqiisa oo laba aayadood oo fii suurati nuur ku jiraan ayuu allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qul atiicu اllaha wa atiicu الrasuul fain tawallow fainamaa calayhi maa xumil wacalaykum maa xumiltum wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad adeecdaan waad hanuuneysaan aakhirka suuraddana allah wuxuu yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen kuwa khilaafaya rasuulka amarkiisa fitno inay ku dhacdo alimaam axmed fitnadaa wuxuu ku fasiray uu yidhi atadrii ma lfitna fitnada ma taqaanaa buu yidhi hiya riddatu waa in diintaba laga baxo waayo qofka marka hore wuxuu ku bilaabaa inuu sunnada uu fudfududaysto yaryaraysto ayuu ku bilaabanaa marka dambe inuu inkiro inuu ku jeesjeeso ee diintiiba markaas waa ka baxayaaba haddii heerkaa uu gaaro aw yusiibahum cadaabun aliim ama inuu ku dhaco cadaab xanuujiyo oo mid cadaab yacni aada u xanuujinaya inuu ku dhaco hanuunkii sunnadaa lagu ballan qaaday lagu damaano qaaday iyada marka laga tago ee la khilaafana meeshii waxaa la tilmaamay oo allah subxaanahu watacaala uu tilmaamay qofkeedu inuu yahay qof maftuun ah oo fitnaysan qofka sunnada nebiga ka tagaa inuu yahay qof axad fitnaysan cadaabna markaa yacni loogu goodiyey dadka miisaanka la saaray iyo imtixaanka laga qaaday qof allaale qofkii maxabbada alle ee jacaylka alla sheegto miisaan waxaa looga dhigay oo lagu imtixaanay inta ay la eg tahay inta rasuulka sala allahu calayhi wasalam raaciddiisa uu raacayo intay kala eg tahay fii suurati ali cimraan allah wuxuu yidhi allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah waxaa ku tiraahdaa haddaad alla jeceshihiin oy dhab idinka tahay isoo raaca alla waa idin jeclaanayaa maxabbada allana waa lagu kasbanaa imtixaanna iyadaa ah alxaafid ibnu kahiir raximahu اllahu tacaalana aayaddaa wuxuu ku tilmaamay aayad imtixaanayso ama lagu imtixaanayo qof kasto ee sheegto jacaylka alla subxaanahu watacaala taa in lagu imtixaanayo siyaaqa aayadaha dabcan ay ku socdaan nasaara najraan wafdigii najraan ee kirishtanka ahaa ee nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam ee la doodayey rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ayay aayaddaani la siyaaq tahay oo ay la socotaa iyagii maadaama ay maxabbo alla sheeganayaan oy leeyihiin dad wanaagsan baan nahay allaan jecelnahay yaa waxaa imtixaan looga dhigay marka oo waxaad ku tiraahdaa baa la yidhi hadday dhab idinka tahay inaad alla jeceshihiin aniga i raaca waayo risaaladii nebiyullaahi ciisa iyo midii nebiyullaahi muusa iyo dhammaan rususha risaaladooda waxa gundhiga u ahaa waa waxa ay rasuul walba uu la yimid isla suuradda allah wuxuu ku tilmaamay waid akhada allahu miihaaqa الnabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikma uma jaaءakum rasuulu musadiqu lima macakum latu'minunna bihi walatansurunnah nebi walba waxaa laga qaaday miihaaq iyo ballan haddii nebi moxamed uu soo gaaro ou arko inuu rumeeyo una gargaaro sababtaasuu nebiga wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi low kaana muusaa xayan lamaa wasicahu ila itibaacii
muuse hadduu noolaa lahay wax kale ma u bannaanaa lahayn ilaa inuu iraaca ma ahan saasuu yidhi nebiga sal ll ly slam oo wuxuu hadalkaa yidhi markuu arkay cumar radia allaahu canhu oo akhrisanaayo saxiifo waraaq ka mida warqadihii towraad oo yahuudi ay haysteen ayuu marka fiirfiirinaya cumar radia allaahu canhu markaasuu nebiga hadalkan ku yidhi nebigii lagu soo dejiyey towraadkii saxda ahaa haddii uu noolaan lahaa anuu iraaci lahaa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wa ficlan nebiyullaahi ciisa markuu soo dego yacnii akhri zamaanka marka uu soo degana ummaddan nin ka mida ayaa salaadda uu ku daba tukanayaa nebiyullaahi moxamed sal l slam diintiisii uu la yimid iyo shareecadiisii ayuu raacayaa sida aahaartu ay tilmaantay intaasoo dhan marka waxayna tusaysaa muhimadda ilaahay subxaanahu watacaala uu nebi moxamed u yeelay sal l slam waxa nagaga aadanna muhimadda ay leeyihiin haddaba marka assunna marka la yidhaahdo sunnada marka la leeyahay dabcan assunna luqa ahaan waxaa weeyaan assunnatu hiya ariiqatu lmasluuka waa dariiqada la qaado khayr iyo shar labadaba waa noqon kartaa marka luqa ahaan laga hadlaayo laakiin marka middan macruufka ee qofka muslimkaa markuu yidhaa assunnatu kadaa sunnada saas waaye sunnada sidaanay leedahay macnaha marka sunnada tan laga wadee machuudka ah waxa ay noqonaysaa sunnatu nebiyi muxamedin sala allahu calayhi wasalam sunnadii nebigeenna unbaa markaa loo jeedaa mana noqonayso ilaa maxmuud unbis wax kale ma aha iyada waayo haddii hanuunkii iyada lagu xiray fitnadii haddii iyada looga badbaadayo qofka ka weecdo ee ka leexdo oo ilaahay hayr yacnii ilaahay ku caabudo iyada wax aan ahaynna waa qof ilaahay ka been abuuranayo walidaalika aayadda suuratulacraaf ku jirto ina aladiina اtakhaduu اlcijla sayanaaluhum gadb min rabbihim wadilat fi اlxayaaةi اddunya wakadalika najzi اlmuftariin abu qilaabat aljarmi cabdullahi bnu zayd iyo sufyaan bnu cuyayna labaduba oo shaykhulimaam shaafici ahaa sufyaan labaduba waxa ay aayadda markay sheegayeen ay soo geliyeen ay yidhaahdeen wakadalika najzi اlmuftariin haadihi likulli mubtadic qof kasta oo waxaa nebi moxamed diin ka yeelanin diin ka dhigto aayaddaani waa u taallaabay dheheen leanna si ahaan buu ilaahay uga been abuuranaa dadku markay iskhilaafaan oo yacnii uu yimaado khilaaf iyo fitanku ay bataan halka uu nebigu noo tilmaamay waxa ay tahay in lagu dhego sunnadiisa sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu yidhi nebiga xadiidkii cirbaad bni saariya innahu man yacish minkum bacdii fasayara اkhtilaafan kaiira facalaykum bisunnatii wa sunnati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin dadku markay iskhilaafaan nebigu wuxuu nagu tirtirsiiyey sunnadiisa inaan ku dheganaano oon qabsanno qur-aanka alla wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ilى اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi waاlyowmi اlآakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila haddaad doodaan ood shay ku doodaan waxaad yeeshaan marka alle rasuul u celiya farudduuhu culimadii baa waxaa la amray hadday wax ku doodaan in loo celiyo allah subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa u celinta alle loo celinayo waa qur-aanka u celinta nebi moxamed loo celinayona sal l slam markuu noolaana waa isaga in loo celiyo markuu dhintayna sunnadiisa in loo laabto haddii sunnada nebiga ummadaha dambe iyadoo nadiif ah oo saafi ah aynan soo gaari karin ilaahay dadka ku waajib ugama dhigeen yani waxaad arkaysaa dacwada beryahan dambe aad u badanaysaa waxa ay tahay yacni sunnadii sugnaanshadeedii baa laga doodaa berigii hore mustashriqiin iyo gaalo iyo waxbaa ka doodi jiray ma badnayn dadka ahlubidaca xataa ay ku dhiirado arrintaas laakiin hadda waxaa batay dadka ku dhiiranayo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam ee meesha dhanba inay ka bixiyaanoo sheekooyinkii khuraafaadka camal dad u arkayaa batay haddaba dadkaa qur-aankii laftiisii bay beeninayaan sababtoo ah ilaahay shay aan la awoodi karin ama shay dhowr sano marka la joogaba baaba-ayo muslim gadaal ka imaan doono kuma unan xireen waajibna ugama dhigeen waayo alla wuxuu leeyahay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila اllahi wاrasuul
cidda lagula hadlaynayaa waaye aayaddu waxay ka bilaabataa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu اllaha waatiicuu الrasuula wauli اlamri minkum fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila اllahi warasuul mu'miniintoo dhan ayaa sidaas lagu yidhi ta kale risaalada ilaahay nebiy llahi moxamed usoo dhiibay sal l slam ee nebiga waxaa la siiyey kitaabka iyo xikmad wax kaloo udhig yacni qur-aankii la mida alaa inii uutiitu اlkitaaba wamilahu macahu buu yidhi kitaabka iyo isagoo kalea layla siiyey qur-aanka aayaddii haddaay aan akrinayena wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma xikmaddu marka maxay tahay waa hadalladiisii waa ficiladiisii waa xaaladihii uu ku noolaa waa wixii uu dadka ku arkay oo uu qiray intaasoo dhan waa xikmaddii nebiga sala اllahu calayhi wasalama ee laga qaatay ama laga dhaxlay qur-aanka haddaba sunnada makaanada kaleo ay joogto waxa ay tahay iyadoo sideeda waajib u ah sida hadda aayadihii aan akhriyeyba ay tusayaan ayaa haddana qur-aankii aanan fahmi karin oo dowr aad iyo aad u weyn qur-aanka inaan muraadka aayadda uu alle ka leeyahay inaan garanno si aan u ogaanno waxaanan ka maarmaynin markaas sunnada nebiga sala اllahu calayhi wasalam oo alla wuxuu yidhi waanzalnaa ilayka dikra waanzalnaa ilayka اdikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii baanu kugu soo dejinnay si aad dadka ugu caddayso wixii loo soo diray oo markaa yacnii lala soo yacnii wixii loo soo dejiyey si aad dadka ugu caddayso qur-aanka ilaahay wuxuu ku yidhi fii suurati الnaxli wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay ibnu abi xaatim fii tafsiirihi wuxuu ku soo saaray bisanadihi can اlawsaaciyi aayaddan uu akhriyay alimaamu اlawsaaci wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wuxuu yidhi ay bisunnati qur-aanka sidee wax kasta loogu caddeeyeyna sunnadaa loogu caddeeyey waayo haddaad sunnadii raacdo qur-aankii waa raacday man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah mar haddii marka wixii nebigu uu kuu sheegana salى اllahu calayhi wasalam waa wixii ilaahay uu kuu sheegay oo kale walidaalika alimaamu shaafici wuxuu ahaa yacni riwaayada iyo diraayada labadaba waa jamciyey alimaamu shaafici xagga xadiidka iyo riwaayadiisuna aada u yaqaanay fahamka qur-aanka iyo xadiidka iyona aada ugu dheereeyey waxaa yacni lagu yidhi mararka ka midabu waxa uu yidhi is-su-aala waxa ay su-aashaan waxaan idinkaga jawaabayaa qur-aanka markaas baa nin baa wuxuu ku yidhi maa taquulu fii muxrimin qatala zumbuuran qof muxrim oo xaj xarman oo yacni cayayaankaas zumbuurka xoonka dilay xukunkiisa bal ka waran qur-aanka ka soo bixiyaa layidhi markaasuu waxa uu yidhi qaala allahu tacaala wamaa aataakum الrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu waqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam iqtaduu biاladayni min bacdi abi bakri wacumar uma saaqa sanadahu sanadkiisuu soo kaxeeyey ilaa cumar mas'aladii oo cumaroo ka fadwooday buu sheegay marka inta uu isku xiray bal fiiri ilaahay waxa uu yihi rasuulka wixii uu idinla yimaada ou idin siiye qaata wixii nebigana siiyey maxaa ka mid ah inaan ku dayanno abubakar iyo cumar cumar marka xukunka uu mas'aladan ka qabo sidaas iyo sidaas waayu saasay marka waxaa yacni sunnada nebiga sal l slam qur-aanka iyo sunnada waxba aynan uga tegin ama markaa yacni qofkii de ka ogaadana waa ogaaday qofkii jaahilana dee jahligiisu isaga inuu wax ku xukumo ma aha haddaba marka waxyaabaha marka sunnada qaababka marka yacni sunnada maadaama ahmiyadda ay leedahay aan tilmaamnay booska ay joogto oo qur-aanku ay u joogtana aan tilmaannay waxaan rabaa yacni inaan wax yar iyadana aan ka taataabto sideedaba sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam
iskeed ayay waxay u tahay xujo u tahay oy daliil u tahay wax kale in lagu kabo uma baahna oo alxaafid alimaam axmed bnu cali bni haabit almacruuf bialkhatiib albaqdaadi kitaabkiisa alfaqiih walmutafaqih waxa uu sanadkiisa ku wariyey can yaxya bni aadam waa saaxibu kitaab alkharaaj ka iskale aimada xadiidkana yani qaar badanoo waxa uu yahay yani shuyuukhihim ma ayuu ka mid yahay marka waxa uu yidhi laa yuxtaaju maca qowli الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ilaa qowli axad nebiga qowlkiisa loogu baahan maayo qof kale qowlkiisa wainamaa kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray buu yidhi sunnatu rasuuli اllahi sal ly slam wa abi bakrin wa cumar kutubta saasaan mararka qaar waxaan ku aragnaa haadihi sunnatu rasuuli llahi sal l slam wa abi bakrin wa cumar tan waa sunnadii nebiga iyo sunnadii abi bakr iyo cumar marka la dhahaya sidaas waxaa loo dhahayaa buu yidhi liyuclama ana الnabiya sal l slam maata calayha yani abu bakr iyo cumar maxaa loogu kabaa sunnada nebiga waxaa loogu kabaa in lagu dareensiiyo sunnadan iyadoo jirto ayuu nebigu dhintay lama nasakhin waayo lianna bacdahu abu bakr iyo cumaraa ku dhaqmeen mar hadday abu bakr iyo cumar ku dhaqmeen oy ku camal faleen xadiidkani lama nasakhin waayo intaabaa adiga lagu fahamsiina ee macnuhu ma ahan sunnada nebiga u baahan qowl abi bakr iyo cumar ay u baahan tahay ma aha sideeday xujo u tahay u sugan tahay laakiin abu bakr iyo cumar marka lagu daro oo lagu kabo sunnadaani mansuukha ma ahane waa muxkama macnaha loo jeeda sidaas way wahaakada a'immada islaamkuna sunnada nebiga sideedaasay u qaateen inay u tahay xujo ay u tahay mar walbana wixii laga jaahil noqdo war sunnadii maxay ahayd waa la isweydii jiray alimaamu albukhaari khalqu afcaali lcibaadka kitaabkiisa wuxuu ku wariyey saciid bnu mansuurna fii sunanihi bayhaqina fi sunani اlkabiir lafdigaana bayhaqi baa iska leho can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi yaa ayuha اnnaas ruddu ljahaalaati ila الsunna waxyaabaha laga jaahilka yahay oon la garanaynin sunnada u celiya sunnada ha loo celiyo marka saxaabada marka ay wax garan waayaan ama mas'alo ay si ka noqoto wariyaa sunno nebiga ka haayo waa isa su-aali jireen haddii la keenana waa ku qanci jireen ama hal nin ha sheego ama 30 ha sheegto ama 5 qof ha sheegaan waa ku qanci jireen sunnada nebiga sal l slam marba haddii ay sugan tahay oo ay yacnii saxaabi afkiisa ay ka maqlaan sidaabay marka u qaadan jireen walidaalika isagoo alimaamu albukhaari tacliiqinaya hadalkan cumar radia allaahu canhu waxa uu yidhi isagu marka mas'alo uu ka hadlaayey oo caqiide ah buu ku dabaqayay wuxuu yidhi wakullu man lam yacrif illaha caza wajalla bikalaamihi annahu gayru makhluuq fainahu yucallam qof walbo oo aan ilaahay kalaamkiisa ugu aqoonsanin in hadalka alle yacni hayru makhluuqin uu yahay mid makhluuqoo la abuuray inuunan ahayn sidaa qofkaan garanin oon u fahmin oon kitaabka ku fahmin fainahu yucallam waa la baraa wayuraddu jahluhu xaggee loo celinaa jahligiisa wayuraddu jahluhu ila alkitaabi wasunna wixii isaga jahli ka galayna qur-aankay sunnadaa loo celinaa faman abaa bacda alcilmi bihi markuu ogaado kadib qofkii diido kaana mucaanidan waa nin dariiqii diinta ku madax adeegaya qaala allahu caza wajalla wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun waliqowlihi waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina ilaa aakhiri اlaaya ayuu sheegay tan marka a'immadii hore iyo yacnii ummadda islaamka ay yaqaaneenna taas ayay ahayd haddaba marka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha waxaan sheegnay waxa ugu horeyso lagula dagaalamo waxay tahay iyada hubuudkeeda in la shaki geliyo goor dhowna ma soo bilaabanin walidaalika saxiixulbukhaariga waxaad ku arkaysaa kitaabada ugu dambeeyo kitaabu khabari lwaaxid ayaa ku jira
khabarulwaaxid marka xadiidka nebiga sal l slam ka imaanayo marna wuxuu uga imaadaa duruq aad u tiro badan, dad badan baa nebiga ka maqlay, dad badanaa ka sii wariyey, dad kaloo badanaa sii wariyey. mararka qaarna waxaa dhici karta sunno nebiga ka sugnaatay hal saxaabi ama laba inay ka maqleen, taabiciintii inay hal ama laba uu ka maqlay, wahaakadaa inay nagu soo gaarto. ayb dad baa marka sunnadii kale labadaas qaab maadaama ay u timaado, dad baa marka si sunnada ay uga takhallusaan waxay ka bilaabeen qeybta ugu badan inay radiyaan, oo waa maxay in allaale intii nebigu ay loogaga maqlay ama loogaga wariyey qaab aaxaad ah kelimad cilmi ah waay dabcan, oo dadka dalabada waa fahmi karaan. wixii aan tawaatur ku imaanin oo dariiq aaxaad ku yimid waa diideen. waqti horeyna arrintaa bilaabatay, alimaamu shaafici waa u guntaday inuu arrintaas naqdiyo kitaabkiisa alrisaala, mawsuucadiisa aad iyo aaduu uga dooday arrintaas. wuxuuna tilmaamay xadiidka nebiga haddii uu ansaxo waajib inay tahay in la qaato, ama ha ku yimaado dariiq aaxaad ama dariiq tawaatur, mid uu doona ha ku yimaado. waana yacni marka la yidhaahdo mas'aladaa marka laga hadlayo axadka loo laabto asalkana u ah alimaamu shaafici buu ahaa raximahu llahu tacaala. alimaamu albukhaari isagana dariiqaas oo kalou raacay, kitaabu khabari lwaaxid ayaa kutubta saxiixiisa ka mid ah. muxuu u keenay dadka sunnada nebiga duraayo ee uga tegaayo yacni hal ama labaa soo wariyey uga tegaayo ayuu marka yacni aad ugu naqdiyey. wuxuuna tilmaamay weliba waxyaabaha labaduba ay deliishadeen ee qofku si fudud uu u garan karo waxaa ka mid a nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu diri jiray mararka qaar inta badan hal qof. maalan yeman oo kale qudri dhan soo maaha, dad badan ay joogeen, iyou u diray nebiga sal l slam mucaad ibnu jabal. abuu muusena waa u diray, laakiin laba qaybo u kala diray. wahaakadaa saxaabada marka hadba mid ayuu wuxuu u dirayay ummad dhan. ummaddaas marka uu u tago muxuu u sheegayeyna caqiidow kala hadlaayay inay ilaahay rumeeyaan, xujadaa ku oogmaysay. oo haddii intaas sidaas saxaabiga uu ugu tago oo uu shahaadateynkii u sharxo oo ay oggolaan waayaan, dad gaalo ah loo aqoonsanayo. marka maxay tahay hal qof ama laba qof waxa uu wariyo iyo waxa ay 100 qof wariso waa kala duwan yihiin. dabcan way kala duwan yihiin, waana kala xoog badanayaan, laakiin in la yidhaahdo middaan khabarulwaaxidka wax loo aqoonsanayo male in la yidhaaho oo sunnadii laga saaro iyay kusoo bilaabatay. a'immadii islaamkana aaday gaashaanka ugu qabteen oo ugu daruureen. taas marka dad baa sidaas ahaa jiray. waxaa kaloo dhacday iyadana marka jiri jirtay sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama in laga hor keeno qur-aanka, oo marka xadiidka nebiga la sheegay la yidhaha maya aayadda qur-aanka sidaan ay leedahay, annaga qur-aankaan raacayna. marka sunnadii baa waxaa lagu garaacaa aayaddii qur-aanka lagu garaacaa. arrintaas marka arrin qadiimay iyadana ahayd. min calaamaati nubuwana waxaa ka mida in nebigeennu sala allahu calayhi wasalam arrintaas inuu dareemay intii uu noolaana uu ka hadlay. oo xadiid imaam axmed uu warinaayo, abu daawuud uu wariyey, tirmidi ibnu maajah min xadiidi cubaydillahi bn abi raafic can abiihi can الnabiyi salى اllahu calayhi wasalama qaal, waxau yidhi nebiga, laa ulfiyanna axadakum, yaanan arkin midkiin muttaki'an calaa ariikatihi, isagoo sariirtiisa ku dangiigo oo ku jiifo, ya'tiihi اlmru min amrii, arrinkayga ka mida u imaanayo, ama amarkayga ka mida, mimaa amartu bihi aan amray, wanahaytu canhu aan reebay. wax aniga arrinkayga ka midoo aniga ama aan amray ama aan reebay baa u imaanayo. fayaquulu laa nadri, markaasuu wuxuu dhahayaa ma ogin, annaga waxaan ma naqaano. wamaa wajadnaa fii kitaabi illaahi itabacnaah, wixii aan qur-aanka ka helno waa raacaynaa, wixii kalena kuma jirno. saasuu dhahaya. yaanan arkin buu yidhi nebigu qof sidaa yidhaahdo. alimaam ibnu maajah wuxuu ku keenay kitaabka ugu horeeya kitaabkiisa, muqadamana waa la dhahaa, kitaabu sunnana waa la yidhaahdaa, wuu ku keenay. abu daawuudna kitaabu sunna ku keenay isagana, oo aakhirka kitaabkiisa
kitaabuladab baa u dambeeyo kitaabu sunna ka soo horeeyo halkaas uu geliyey yani masalada meesha ay joogto yani darnaanteeda marka arrin uu nebigu ka sii cabsadayba sala allahu calayhi wasalam inay arrintaa tahay baan ogaanay alimaamu alaajuri fi shariica wuxuu sanadkiisa ku wariyey can saciid bni jubayr annahu xadaa can الnabiy sal l slam xadiiثan saciid ibnu jubayr waa ardaygii ibnu cabaas waa taabici xadiid buu sheegay nebiga ka wariyey faqaala rajulu nin baa marka wuxuu yidhi ina allaha tacaala qaala fii kitaabihi kada wakada ilaahay kitaabkiisu saaysaa buu ku yidhi xadiid nebigaa la sheegay nin baa marka soo booday markaasuu yidhi ilaahayna sidaanuu yidhi qur-aankii iyo xadiidkii nebigu iska horkeena faqaala saciid markaa wuxuu ku yidhi taabiciga alaa araaka tucaaridu xadiida rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam bikitaab illaah war miyaanan ku arkaynin xadiidkii nebiga inaad kitaabka ilaahay ku mucaaradayso rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam aclamu bikitaab illaahi minka nebiga allah kaaga aqoon badnaa kitaabka ilaahay adiga yani haddii nebigii kitaabkii nebigaa kaaga aqoon badan maadaama uu kaaga aqoon badan yahayna nebigu ma khilaafayo kitaabkii lagu soo dejiyey adigaa been wadata waay marka adaa qalad isfahmsiiyey sidoo kale arrintan alkhaliifatu اraashid amiiru اlmu'miniin cumar bnu اlkhadaab radia allahu canhu arrintan waa dareemay isagana dhibaatada ay keeni doonto oo waxa uu yidhi sayaأtii naasun yujaadiluunakum bishubuhaati اlqur'an waxaa idiin imaan doona dad qur'aanka waxyaabihiisa isku eg idinkula doodo fakhuduuhum bisunan kuwaasi sunnada nebiga ku qabta fa ina asxaaba sunani aclamu bikitaab illaah dadka xadiidka nebiga yaqaanaa kitaabka alle ugu aqoon badan yacni macnaha kitaabka alle iyagaa ugu aqoon badan oo ugu ogaal badan qofka marka yacnii arrintaa marka arrin qadiima iyadana inay ahayd mar yacnii sunnada nebiga tashkiik in la geliyo sugnaanshaheeda mar kalena in qur-aanka laga hor keeno alimaam khatiib اlbaqdaadi kitaabkiisa alfaqih اlmutafaqih isagana zuhri wuxuu ka wariyey bisanadihi can zuhriyi wuxuu yihi zuhri sallimuu lisunnati walaa tucaariduuha war sunnada u nabadgeliya waxay la timaado ha caaridinina ha ka hor imaaninina sunnada nebiga sal l slm ma ansaxday waa la isweydii karaa hadday saxiix tahay sunnadu nebiga ka sugnaatay war dambe ma laha ayb sidoo kale shaykhu اlbukhaari nucaym bnu xamaad waxa uu yidhi man taraka xadiiثa macruufan xadiid la yaqaano qofkii ka tago falam yacmal bihi aan ku camal falin wa araada lahu cilatan cilana u raaraadiyo yanii marmarsiyo si uu uga tago u raaraadiyo wa araada lahu cilatan an yaطraxahu inuu tuuro doono fa huwa mubtadicun qofkaasi waa qof mubtadica saasuu yidhi aayaddii haddaay aan akrinayna iyadana marka waxaa ku jirtay fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila اllahi wاrasuul alxaafid bnu cabdilbar waxa uu yidhi alraddu ilaa kitaab illaahi yani waraddu ilaa rasuulihi ida kaana xayan falamaa qabadahu اllahu faraddu ilaa sunnatihi markaas ayaa waxa uu yidhi rasuulka sala اllahu calayhi wasalam in sunnadiisa la raaco wax ay ku xiran tahay maa jiro yacni waxaana la yidhi rasuulka sunnadiisa raaca markay saas tahay miyaa jiro mase daacatu nebiyi waa mutlaqa waa furan tahay daacada nebigu waa mutlaq waxba laguma xirin waa furan tahay sida ilaahay daacadiisu mutlaq u tahay daacada rasuulkuna waa mutlaq oo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu rasuul man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah qofkii rasuulka adeeco allou adeecay meeshaan marka nugta muhiim a baa ku jirto oo alxaafid ibnu cabdilbar jaamicu bayaani اlcilmi wa fadlihi uu ku soo qaaday taana waxay tahay dadka sunnada nebiga ka tegaya oo dhahaya qur-aanka ma waafaqsana kaanamaa marka hadalkoodu waxa uu yahay sunnada waxaa la qaadan karaa markay qur-aanka waafaqsan tahay haddii aynan qur-aanku waafaqsanayna ma la qaadanayo saasay dhahayaan
waana jiraan dad waxaas ka diin dhigto waqtigan aan joogno waa dadkan qur'aaniyiinta lagu magacaabayo waaye marka qur'aaniyiin la leeyahayna inay qur-aanka raacsan yihiin maaha inay inkirsan yihiin waay sida qadariyadaba loogu magacaabay qadariya liinkaarihim alqadar inkiridda ay qadarka inkirayaan darteed haddaba marka dadkaas iyuu ka hadlayaa alxaafid ibnu cabdilbar jaamicu bayaan alcilmi wafadlihi waxa uu yidhi waqad amara allahu caza wajalla biطaacatihi ay rasuul sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu amray nebiga in la adeeco waitibaacihi raaciddiisii buu amray amran muطlaqan mujmalan amar duuduub ah oo mujmal oo muطlaq ah oo aan waxba lagu xirin shardi laguma xirin lam yuqayid bishayin ilaahay markuu amraayay nebiga in la raaco kuma xirin waxba walam yaqul ma dhihin maa waafaqa kitaab allaahi wixii kitaabka ilaahay waafaqo ka qaata nebiga ma dhihin ilaahay bal si guud nebiga u raacaana la yihi kamaa qaala bacdu ahli zayq sida ay dhahayaan ahlu zayqa dadka baadiyoobay qaar ka mid ah sida ay dhahayaan arrintu maahana markuu kitaabka waafaqa qaata raaca sidaa ma dhihin ilaahay bal si caamo mutlaqa buu noo amray qaala cabduraxmaan ibnu mahdiy qaala cabduraxmaan ibnu mahdiy wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu mahdi imaamu ahli lbasra buu ahaa yaxya ibnu saciidin alqataan iyo ku yani la ahaa aqraan ahaayeen bukhaari iyo aimada muslim iyana shuyuukhdooda u yahay sheekh cabdiraxmaan ibnu mahdi waxa uu yihi azanaadiqatu wاlkhawaariju wadacuu dalika alxadiida xadiiday sameeyeen buu yihi zanaadiqada iyo khawaarijta yani khawaarijta wuxuu halkan ugu daraya waxay tahay qur-aanka hala qabsaday qabaan ayaga laftooda oo sunnada nebiga waa laga tegayay marka xadiid bay sameeyeen buu yihi yacni maa ruwiya canhu sala allahu calayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi maa ataakum cannii wixii aniga xaggayga ka imaado idinkaga yimaado facriduuhu calaa kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa u bandhiga bal fiiri beentaas wixii xaggayga ka imaado kitaabka alla u bandhiga fain waafaqa kitaab allahi fa ana qultuhu haddii ilaahay kitaabkiisa uu waafaqo fa ana qultuhu anaa dhahay wain khaalafa kitaab allahi haddii uu khilaafana falam aqulhu aniga ma aanan dhihin xadiidkaas beenta ahay sameeyeen wa haadihi اlalfaadu laa tasixu canhu sal l slam alfaadda noocaanina nebiga agtiisa yani nebiga kama ansixin sala اllahu calayhi wasalam cinda ahli اlcilmi bisaxiixi naqli min saqiimih waqad caarada hada اlxadiida qowm min ahli اlcilmi ayaga xadiidka marka maxay ka dhigeen waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi nebigu haddii aada aragtaan xadiidkayga hadduu idiin yimaado qur-aanka u bandhiga marka horta xadiidku waa baatil ka soo qaadba marka isaga laftiisa haddii loo bandhigo qur-aanka xadiidkan laftiisa oo mawduuca ah oo ayagu ay sameeyeen oo nebigu ounan dhihin haddaan ku dhaqanno qaacidadooda oon u bandhigno kitaabka ilaahay qaaluu nacridu hada alxadiida calaa kitaab illaahi qabla kulli shay wanactamidu calaa dalika markaan saasaanna cuskanaynaa qaaluu waxay yidhaahdeen falamaa caradnaahu calaa kitaabi illaahi caza wajalla waxaana ay soo dhowdhoobeen markaan kitaabka u bandhignay wajadnaahu mukhaalifan likitaab illaah waxaan aragnay inuu kitaabka alla khilaafsan yahay